injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 11 waxaa jiray nin buka oo ah Lazarus reer Beytaniya ee joogay tuulada Maryan iyo walaasheed Marta. Maryantaas waxa ay tii Rabbiga cadar marisay oo cagihiisa tibaheeda ku tirtirtay oo walaalkeed Lazarus bukay. sidaas aawadeed walaalihii fariin bay Rabbiga u direen iyagoo leh saylo ogow kii aad jeclayd waa bukaaye. laakiin Ciise markuu taas maqlay wuxuu yidhi bukaankanu kan dhimashada ma aha laakiin waa ammaanta Ilaah aawadeed in wiilka Ilaah lagu ammaano. Ciise ayaa jeclaa Marta iyo walaasheed iyo Lazarus sidaa aawadeed markuu maqlay inuu buko 2 maalmood oo kale ayuu meeshuu joogay iska sii joogay. markaas dabadeed ayuu xertii ku yidhi Yahuudiyaan haddana tagno. xertii waxay yidhaahdeen macallimow Yahuuddu waxay haddana doonayaan inay ku dharxiyaan ma waxaad mar kale u kacaysaa meeshaas. Ciise ayaa ugu jawaabay maalintu miyaanay 12 saacadood ahayn qof hadduu maalinta socdo ma turunturoodo waayo wuxuu arkaa iftiinka dunidan laakiin qof hadduu habeenka socdo wuu turunturoodaa waayo iftiinku kuma jiro isaga. waxyaalahaas ayuu ku hadlay oo dabadeeto wuxuu ku yidhi iyaga saaxiibkeen Lazarus waa hurdaa laakiin waan u tegayaa inaan soo toosiyo. sidaa daraaddeed xertii waxay ku yidhaahdeen sayidow hadduu hurdo wuu bogsanayaa. Ciise wuxuu ka hadlayay dhimashadiisa iyaguse waxay u maleeyeen inuu ka hadlayo nasashada hurdada. Ciise haddaba ayaa bayaan ugu yidhi Lazarus waa dhintay. anigu waa ku faraxsanahay aawadiin inaanan halkaas joogin si aad u rumaysataan laakiin aan u tagno. sidaa aawadeed Thomas kii Didumus la odhan jiray wuxuu ku yidhi xertii la socotay innaguna aan tagno si aynu ula dhimanno. haddaba markuu Ciise yimid wuxuu ogaaday inuu 4 maalmood xabaasha ku jiray. haddana Beytaniya waa u dhoweyd Yeruusaalem oo waxay u jirtay qiyaas 15 istaadiyon. Yuhuud badan waxay u yimaadeen Marta iyo Maryan inay walaalkood uga tacsiyeeyaan. Marta haddaba markay maqashay in Ciise imaanayo ayay ka hortagtay, Maryanse gurigay iska fadhiday. markaasaa Marta waxay Ciise ku tiri sayidow haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen. hadda waxaan garanayaa in wax alla waxaad Ilaah weydiisatid uu ku siinayo. markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi walaalka waa sare kici doonaa. Marta ku tiri waan garanayaa inuu kici doono waqtiga sare kicidda ee maalinta ugu dambaysa. Ciise ayaa ku yidhi anigu waxaan ahay sare kicidda iyo nolosha. kii rumaysta inkastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa. kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono. waxaan ma rumaysan tahay? waxay ku tidhi haa sayidow waan rumaysanahay inaad tahay Masiixa oo ah wiilka Ilaah oo dunida iman lahaa. markay taas tidhi way tagtay oo hoos ahaan ugu soo yeedhay walaasheed Maryan oo waxay ku tidhi macallinkii halkan buu joogaa waana ku yeedhayaa. iyaduna kolkay maqashay dhaqso bay u kacday oo u tagtay. Ciise weli ma iman tuulada laakiinse wuxuu weli joogay meeshii Marta kaga hor tagtay. haddaba Yahuudiyada guriga la joogay oo u tacsiyeynaysay markay arkeen Maryan inay dhaqso u kacday oo baxday ayay raaceen iyagoo u malaynaya inay xabaashi tegayso inay meeshaas ku baroorato. haddaba Maryan markay timid meeshii Ciise joogay oo ay aragtay isaga waxay ku dhacday cagihiisa iyadoo ku leh sayidow haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen. Ciise haddaba markuu arkay iyadoo barooranaysa iyo Yuhuudi la socotay oo la barooranaysa ayuu ka qalbi xumaaday wuuna murugooday. markaasuu yidhi xaggee baad dhigteen? waxay ku yidhaahdeen sayidow kaalay oo arag. Ciise wuu oowey. sidaa daraaddeed Yuhuuddu waxay yidhaahdeen bal eega siduu u jeclaa. qaarkoodse waxay yidhaahdeen ninkan oo indhaha u furay kii indhaha la'aa miyuusan wax ka samayn karin inuusan ninkaasu dhiman. sidaa daraaddeed Ciise oo mar hore qalbi xumaaday ayaa xabaashi yimi. waxay ahayd god dhagax baana saarnaa. Ciise ayaa yidhi dhagaxa ka qaada. Marta oo ahayd kii dhintay walaashiis waxay ku tidhi sayidow hadda wuu urayaa waayo 4 maalmood buu mootanaa. Ciise wuxuu ku yidhi miyaanan kugu odhan haddaad rumaysatid waxaad arki doontaa ammaanta Ilaah. markaasay dhagaxii ka qaadeen. Ciisena indhihiisu kor u taagay oo yidhi aabbow waan kuugu mahadnaqayaa inaad i maqashay
waana ogaa inaad mar kastay maqasho laakiin dadka badan oo hareerahayga taagan aawadood ayaan taas u idhi inay rumaystaan inaad adigu isoo dirtay markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn laasarusow soo bax markaasaa kii dhintay soo baxay isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay wejigana mara kaga xidhan tahay kolkaasuu ciise wuxuu ku yidhi iyaga fura oo daaya ha socdee sidaa aawadeed qaar badan oo yuhuudi ah oo maryan u yimid oo arkay wuxuu sameeyey ayaa rumaystay qaarkoodse way u tageen farrisiintii oo waxay u sheegeen wuxuu ciise sameeyey sidaa aawadeed wadaadadii sare iyo farrisiintii shir bay isugu yimaadeen oo yidhaahdeen maxaynu samaynaa waayo ninkanu calaamooyin badan buu sameeyey haddaynu sidaa u dayno dhammaan way rumaysan doonaan isaga oo dadka roomana way iman doonaan oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo quruunteenna midkood kayfas lo odhan jiray oo wadaadka sare ahaa sannaddaas wuxuu iyagii ku yidhi waxba garan maysaan oo ka fiirsan maysaan inay idiin roon tahay in nin keliihu dadka u dhinto oo aan quruunta oo dhammu lumin waxaas iskama odhan laakiinse isagoo wadaadka sare sannaddaas wuxuu sii sheegay in ciise quruunta u dhiman doono quruuntii oo keliya uma aha laakiin inuu mid keliya isugu soo ururiyo carruurta ilaah oo kala firirsan haddaba maalintaas wixii ka dambeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan sidaas daraaddeed mar dambe ciise bayaan uma dhex marin yuhuuda wuxuuse ka tegey meeshaas ilaa meel u dhoweed cidlada ilaa magaalo la yidhaahdo efrayim halkaasuuna xertii la joogay hadda iidda yuhuudda ee kormaridda la yidhaahdaa waa dhoweyd kuwo badanna waxay u kaceen yeruusaalem iyagoo dalka ka yimid iiddii kormaridda horteed inay isdaahiriyaan sidaa daraaddeed ayay ciise doondooneen oo waxay isku yidhaahdeen iyagoo macbudka dhex taagan maxay idinla tahay ma inuusan iidda imaanayninba wadaadadii sare iyo farrisiintii waxay amar ku bixiyeen hadduu qof ogaado meeshuu joogo waa inuu sheego hal la qabtee